السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشركن oo kii sideedaad ee HTML iyo CSS ku baro af Soomaali waxaan ku baran doonaa nooca farta qoraalka laga dhigayo. Qoraalku ku qoran yahay website-ka fartaysa nooceeda ayaan baran doonaa insha Allah. Sida casharkan si loogu sameeyo website-ka ayaan ku baran doonaa insha Allah casharkan. Marka soo diyaarso file-kii aan hore u sameynay style ee boggii HTML kan qoraynay. Marka file-kii HTML-ka CSS kan ku qorayna xeerka macnaha farta nooceeda hada farta hadda inoo qoran meeshan waxaan nooceeda bedelno oo noocna waxa kuna ka dhigno marka si loo sameeyaa nooca farta waxa loo sameeyaa tusaale ahaan bogga dhan waxa ka bedelna farta nooceeda marka waxa tagtaa qaybta body background meesha ku qornaa hoosteeda enter leh korkeeda lagu qori karaa laakiin hadda hoosteeda ku qorinaa enter battery markaas waxa qoraysaa font dash family waxay u taagan tahay nooca farta oo website ku noqonayo ama qaybta loogu talagalay noqonayso way marka macnaha waa font family waa nooca farta marka meel banaan noocyada marka farta loo sameeyo qayb kamid aan qorayna sharaxaadda waa gadaal baan ka hari doonaa insha Allah laakiin hadda fiiri si loo qoro macnaha guud baa marka loo qoraynaa marka waxa la doortaa farta tusaale ahaan firdana waa nooc far ah markaas waxa la doortaa far kale oo nooc la yiraahdo Arial sababtoo arki doonaa u dooranaa loo furo kala duwan ama saddex farood markaas waxaan dooranaa Helvetica markaas waxaan dooranaa waxa la yiraahdo Sans Serif markaas waxaan ku xireynaa calaamadii hakadka iyo dhibicda soo saaray ma fahanti marka ayagna waxaan noo soo baxaa qoraalka hadda fiirso og yahay markaan save gareyno atra refresh hadda si fiican ugu jeedid laakiin waxa weeyaan hadhow markaan farta cabirkeeda weyn arag garan kartaa marka hadda waxa isbedelay nooca farta waxay noqotay firdana bay noqotay haddii computerka ku jirin firdana wuxuu noqonayaa Arial haddii si Arial ku jirin wuxuu noqonayaa Helvetica ma fahanti waxa kale aan sameynaa marka cabirkii farta meesha wadda mas enter leh waxa la font dash size laba dhibcood soo saaran marka hore waxa la font waxa uu soo bedel waayo qaladku wuxuu ahaa font waxa weeyaan waa FM font ka dhig FO way save font size marka waxa weeyaan waa cabirkii farta laga dhigayay ma fahanti cabirkii farta way cabirkii farta marka waxa weeyaan waxaan ka soo qaadaynaa tusaale ahaan waxa ka dhigtaa 14 pixel mana waa qurub way moogtahay bay ka taagan tahay xir laba dhibcood soo saaran dhibicii hakadka baan ka wadaa save refresh waxa soo keenay bedel farta xataa isbedeshay waayo marka hore font baan ka dhigay taas khalad marka waa font dash family oo ingiriis u qoran font size na waa cabirkii oo ingiriis u qoran marka hadda u fiirso farta isbedeshay cabirkeedana wuu ka weynaaday intii noocii ahaydna iska bedeshay hadda xusita nooc marka hore ahayd baabiitan kad save it ku soo noqo refresh saas way nooca u fiirso markaan ku soo noqono tan sameynay undo indhahno save u fiirso markaan refresh nahno saas ay noqotay maarta marka intii way ka weynaatay marka sharaxaad kooban aan ka bixino mar haddaan aragnay sida loo qorayo macnaha farta qaabka loo qorayo nooca farta sharaxaad kooban ka bixino waxaan soo diyaarsanayaa qoraal kooban meesha igu qornaa nooca farta waxaan niri waxa loo qoraa font family ayaa loo qoraa waniri soo ma font family waa nooca farta font family soo jeedid font family marka waxay noqon kartaa dhowr nooc way noqon kartaa wax la yiraahdo sans serif waxa waa far ku haboon shaashada computerka ku haboon waana nooc macnaha siman u fiirso oo siman tahay macnaha far siman weey taas marka waxa loo bixiyay waxa loo yaqaanaa oo computerku yaqaanaa sans serif waxa jira far computerka loo isticmaali karaa isla maantana printing waxyaabaha la daabacayna loo isticmaali karo la yiraahdo waxa la serif marka geesay leedahay macnaha geesayda wax yar ba ka tagtaayin ma garatay waa serif weey waxa la yiraahdaa mid loo yaqaano monoscape waxa waa far kala durugsan xogaa
inta badan waxyaabaha meelaha la qeexayo waxaas loo isticmaalo ma badan lama isticmaalo qoraalka caadiga ah fantasy badan lama isticmaalo cursive iyada inta badan lama isticmaalo laakiin waa la isticmaali karaa loo baahdo ma garatay marka waxaan yiri intaas soo nooc bay noqotaa macna farta caadiyan shanta nooc bay noqotaa waa fahamtaa filaya marka tusaalahaan sans serif waxay noqon kartaa noocyada waxaa ka mid ah Arial, Verdana, Helvetica, Geneva marka laba xaraf ay ka kooban tahay waxaa la geliyaa kood baa la geliyaa macnaha sida kuwan hadda haddii la qori lahaa lucida sans haddaan qori lahayn meeshan ku qori lahayn waxaan qori lahayn kood baan dhex gelin lahayn ma fahamtay sida tan oo kaleeto hadda ugu jirto serif waxaa ka mid ah noocyadana ka mid ah serifka waxaa ka mid ah Times New Roman hadhow marka la qorayo waxaa la gelinayaa comedy waa la gelinayaa labadii firgalo xagga laga gelinayaa farta haddii ay ka kooban tahay hal nooc hal xaraf haddii ka kooban tahay lama baahna in la geliyo labadii qaanso labadii firgalo laakiin haddii ay ka kooban tahay laba xaraf iyo ka badan waxaa la gelinayaa sida tan oo kaleeto waxaa la gelinayaa labadii qaansaa la gelinayaa ma garatay monoscope waxaan idhi monoscape waxaan idhi waxaa noqon kartaa noocan dhowrka nooc noqon kartaa sida courier oo kaleeto noqon kartaa iyadoo inta badan waxay ku fiican tahay waxyaabaha taybka loogu talagalay fantasiyahan waxaa ka mid ah Algerian impact noocaasa ka mid ah marka macnaha ka dambeeya in farta la qoro dhowr hadda waxaan idhi waxaan qornay font family waan qornay markaas waxaan qornay Verdana, Arial, Helvetica, sans serif maxaan u qoraynaa ma hal xabo doorno sababta loo qorayaa waxay tahay kombiyuutarada isku far nooca kuma jirto marka hadhow aaladda lagu daalacanayo website-ka waxaa laga yaabaa inuu yahay Mac oo kaleeto ama Macintosh ama uu yahay Windows ama Mac ama Windows naftirkeeda kala duwan waxaa laga yaabaa inay tahay Windows 7 ama Windows XP ama Windows Vista marka waxaa laga yaabaa faraha nooca ku jira inay kala duwan tahay browserka marka la adeegsanayaa waxa uu garanayaa farta ku jira kombiyuutarka unbuu garanayaa ee tii website-ka lagu qoray ma garanayo marka website-ka in lagu qoraa dhowr xabo marka tusaale ahaan Verdana waxa weeyaan waxay ku jirtaa kombiyuutarada iyadoo Windows-ka Arial sidoo kale waxay ku jirtaa kombiyuutarada Windows-ka laakiin Helvetica waxay ku jirtaa kombiyuutarada nooca loo yaqaan Mac ama Macintosh sans serif waxaa loogu daray marka haddii tan saddexda xababa ayaan ku jirin kombiyuutarkaaga marka kombiyuutarka wuxuu ka raadinayaa website-ka wuxuu ka raadinayaa macnaa browserka wuxuu kombiyuutar ka raadinayaa nooca farta oo loo yaqaan sans serif nooca dunta haatee oo ugu dhow kuwa adiga soo xoratay ayuu markaas ku soo saaraya shaashadda marka sababtaas loo xushay macnaa noocyo kala duwan oo sans serif looga gadaal mari halkaas serif bay noqon kartaa anaga soo aragnay noocyada marka la qorayo macnaha noocan haddaad doorato maarata tusaale ahaan Georgia haddaad doorato marka waa inaad ka dambaysiisaa serif marka Georgia waa serif ma fahamtay marka waxaan nidhi kombiyuutaro badan markay isticmaalayaan mid waxaa ku jiri karta Arial midna waxaa ku jiri karta Verdana marka sans serif haddii aan ku jirin labada midkood sans serif buu marka kombiyuutarka dooranaya ma fahamtay waa garatay waan filaya waxaa kaloo aragnay farta nooceeda cabirkii wey marka noocaan soo aragnay cabirka farta waxa loo qoraa marka waxaan nidhi font iyo size oo macnaha hal jit loo dhexaysiiyey size marka wuxuu noqon karaa nooca farta lagu cabira wuxuu noqon kartaa wax loo yaqaano pixel uu noqon karaa aan eegno oo pixel ama waa qurub wey moogtahay wuxuu noqon karaa m waxaa loo soo gaabay em ama boqolley percentage saddexa midkood buu noqon karaa bt-na wuu noqon karaa oo haddii la doono macnaa waa bt meesha laga dhigi lahaa haddana waxaan qaadanay pixel baan qaadanay ma fahamtay waxaan ka dhigi kari lahayn m baan ka dhigi kari lahayn ma fahamtay waxaan ka dhigi kari lahayn percentage marka laakiin waxaad u dooranay inagu pixel baan tusaalahan usoo qaadanayna haddii la rabo macnaa in qofka shaashadaha u bedeli karaan ayaa loo isticmaala labadan macnaa dadka soo booqanaya inay bedeli karaan oo si ran cabirka ka dhigi karaan haddaad pixel ka dhigta laakiin adaa xukumaya macnaa inta badan sida caadiyana inkastoo browsera casriga ay mar walba la yareyn karo ama la weyneyn karo haddii loo baahdo ma fahamtay marka waa kana haddaan nidhi marka em haddaan usoo qaadan em waa number yar laga dhigaa lagama dhigi karo macnaha 14 boqolkiiba macnaha waa noqonaysaa boqolkiiba 14 laakiin emka number waa laga dhigaa hal oo kaleeto ama 1.2 oo kaleeto wax la mid ah ma fahamtay marka almuhim waxa ah inaad fahamsan tahay fontiga marka la qoro
in la doorto dhowr nooc website badan oo laga heli kara ayaa jira macna noocyada la dooranayo tusaale ahaan website-kan marka ama waxaad Google ka baaraysaa ama internet ka baaraysaa waxa la yiraahdo waxa ku qoraysaa browser save fonts ana waa fontiga ku habboon browserada ma fahanti ba ka baaraysaa macna meesha Google ka ku qorto markaas waxa ku soo baxaya macna noocyo faraha oo ku habboon browserada sida koona kale tada waa kana Arial soo jeedid waa tan Arial-kii iyo alphabetically waxa laga dameysiyay sans serif mar haddii labadaas isugu jireen computerka wuxuu helayaa sans serif raadinaya haddii ay ku jireen Arial Black oo kale to iyo gadget wuxuu raadinayaa sans serif haddii noocaan ku jireen wuxuu raadinayaa cursive soo jeedid noocan waa cursive haddii tan ay isku jireen wuxuu raadinayaa monoscript wuxuu raadinayaa hadda Georgia xolatay oo Georgia uu isku jireen wuxuu raadinayaa marka serif almuhiim marka waxa weeyaan haddaad rabto noocyo badan raasatid oo fara ah waxa ku baaraysaa browser save font marka waa font oo ku habboon browserada ma fahanti waxa kale oo la qoraa waxa loo yaqaano line height macnaha hadda fiiri waxa isku dhow labadan line waa isku dhow yihiin soo martid laymankan macnaha waa isku dhow yihiin line-ka marka si loo kala akhrisku u sahlanaado waa in laymanka la kala fidiyaa oo la kala durkiyaa xoogaa ma garatay marka waxa la qoraa waxa la yiraahdo line height line iyo height laba dhibcood marka cabirka line-ka intuu yahay baa ka dhigaysaa tusaale ahaan cabirka hadda ku qoran waxa inta badan laga weynaysiiyaa qoraalka farta macna cabirkeeda caadiga ah iyo line-ka la weynaysiiyaa macna intuu kala sareeyo tusaale ahaan marka waxaan ka dhiganaa inaan ka dhigno 25 pixel ka dhigno tusaale ahaan marka save garee waxaad tiraahdaa inta imo refresh dheh waa kala durkaan soo ma jeedo marka hadda aad baan kala fogeynay labadii line oo kasta waxa weeyaan waxa u dhaxeeya meel weyn baa u dhaxaysa oo balaaran ana waa kala durkanay kor baan kala durkanay marka hadda waxaan qornay saddex xeer baan isku hoos qornay saddexdeeba ay tilmaamayso farta nooceedii midda koowaad oo tilmaamaysa nooca farta tan labaad oo tilmaamaysa cabirka macna farta iyo joogga sadarka waa labadii sadar kala sareentooda haddaba habka fiican loo qoraa jira oo ka wanaagsan oo macnaha kana sahlan aan eegno inteena ku qor hadhow kuwa masaxayna markaan habka qorano waxaad tiraahdaa waxa la qoraa font laba dhibcood marka intaa qortid fonti aa qortid oo kan waxaan ka ilooni koomadii font marka intaa qortid waxa qoraysaa marka ugu horeysa waxa ku xijinaysaa size-ka ama ugu hormarinaysaa size-ku muxuu ahaa 14 bana ka dhahdo mogta 14 pixel markaas la qoraya calaamad jiifta ma garatay waxa ku xijinaysaa marka height-ka sadarka height-kiisii oo marka waxaan qornay marka hore 25 pixel meel bannaan markaas waxa qoraysaa intaan oo dhan marka qoraysaa waxaa leedahay markaas nooca farta marka qoraysaa maxay fartani Verdana hakad farta markaas qoraysaa marka intaan ma baahnin iska baabi marka waxaad tiraahdaa save dheh waxa iska bedelmaya marka waxa marka tiraahdaa refresh waxa iska bedelmaya soo ma jeedo marka waa isku mid inaan saddexda leen qori lahayn iyo halkaan leen baan ka deeqaya ma fahanti hab ka si wanaagsan baa inta badan loo qoraa meeshaan dambe tan dambe numberka oo ah joogga sadarka inta loo dhaxaysinay line height-ka waxaa loo qori karaa tusaale ahaan cabirkan hadda ku yaala mid hal iyo bar ka badan macnaha tusaale ahaan waxaa leedahay 1.5 macnaheedu maxay tahay 14 baan ka dhignay macnaha waxaan ka dhignay qoraalka cabirkiisa baan ka dhignay soo maa waxaan ka badanaynaa marka nus baan ka badanaynaa macnaha hal iyo bar waxay tahay taani waxay rabtaa haati marka save refresh sadarka marka waxa weeyaan qurux banaanay soo jeedid haddaad rabtid tan marka weynaysid eeg 16 baan ka dhignay halkaas save dheh marka kan wuxuu noqonayaa joog wuxuu noqonayaa 16 iyo bar buu noqonayaa marka intii waa ka weynaanaya soo maartid mar walba marka waxa weeyaan waa tan uu la soconaya cabirkaas ma garatay waxaas la soconaya joogga oo kan ah
iyo cabirkii farta nooceedii nooc farta ahaa iyo nooceedii saddexda soo soconayaan ma garatay waa fahamtaan filaya mar haddii aan fahamnay qaabka loo sameeyo cabirka farta waxaan tusaale ahaan samaynaynaa saddex ciwaan oo h1 h2 h3 oo kala cabir sarreeya kala cabir badan soo samaynaynaa waxaanu ku dartaa qoraalkeennii indexka saddex ciwaan waxaan samayn karnaa qoraal baan ku dhex qori karnaa oo saddex ciwaan oo mid walba qoraalkiisa gaar u leeyahay laakiin hadda muhiimaddeenu waxay tahay inaan aragno sida u kala duwan yihiin h1 h2 h3 waan u kala samaynay cabir ama size kala duwan ma fahanti marka waxaad timaadaa safe dheh waxaad timaadaa marka stylekaaga imow kadibna waxaa ku qortaa meeshaan h1 ka marka waxaa samaysaa cabir waxaad tidhaahdaa font size 225% macnaha cabirkii farta guud baa waxaan ka weynaysiinaynaa 225% macnaha 225% baan ka weynaysiinaynaa ma garatay sidoo kale waxaa qortaa h2 iyo h3 oo u samaysay cabir oo samaysay font size u samaysay waatana mujida maxaa qornay h2 labadii bilood oo furan font size waxaan ka dhignay marka tan waxaan ka dhignay 150 baan ka dhignay tan kalena waxaan ka dhignay ka sii hooseysa 125 ma fahanti marka almuhim waxa weeyaan inay h1 ay ka weyn tahay h2 h2 ay ka weyn tahay h3 macnaha si u kala weyn yihiin hore xusuuso waxa ugu weyn h1 waxa ku xiga oo ka yar h2 waxa ka sii yar h3 ilaa iyo h6 laga gaarayo baa ugu yar marka save tirahdid waxa ku soo baxaya refresh tirahdid saddexdii ciwaan ku soo baxaya macnaha mid walba uu leeyahay cabirkan u samaynay ma fahanti halkaas waxaan ku soo baranay sida loo sameeyo cabirka farta islamanaantan loogu sameeyo nooca farta cabirkeeda iyo joogga sadarka u dhaxaya farta u dhaxaya qoraalka u dhaxaya oo ah heightkii aan u bixin line height intii rabo cabira marka ayaa loo samayn karaa h1 h2 h3 macnaha inta badan waxa loo sameeyaa sida u kala weyn baa loo kala percentage lagu kala badiyaa ma fahanti marka shaqa guri ahaan waxaad u qaadataa inaad samaysid hadda ciwaanada anigu waxaan ku dhex qoray moogtahay qoraal kuma dhex qorin mid walba qoraal u samaysid ciwaanada marka kala habaysid oo qoraal saddex ciwaan oo kala yar oo h1 iyo h2 h3 oo mid walba uu leeyahay qoraalkiisa gaarka ah hadaa laga rabaa marka muhiimadu waxay tahay inaad markaan hadda u samaysid baragraph meeshaan u samaysid baragraph halkan u samaysid baragraph halkan u samaysid baragraph halkan u samaysid baragraph si uu noqdo qoraal is xiriirsan ma fahanti haddaa rabto waxaad samayn kartaa page cusub oo u bixisa h3 u bixisa new page save as waxaad u bixisaa casharka saddexaad .html markaa save garee ilaa waxaanu haysanay marka hore 1 iyo 2 iyo index kaa marka waxaa ku qorataa xerarkii marka waxaa u samaysaa saddex baragraph iyo saddex ciwaan macnaha u kala samey h1 h2 h3 iyo mid walba baragraphiisa wato markaa ku xiriiri indexkii ku xiriiri linki uga samey kadibna marka waxa weeyaan cabirkaanu marka qaadanaya cabiradaas marka qaadanaya waa arki doontaa casharku wuxuu soo samaysid mar haddii aad u samaysid xeerarkii caadiga ku qortay aad ugu qortay marka h1 h2 h3 waa inuu qaataa cabirkaas aan samaynay ma fahanti marka waa shaqo guri ahaan taasi halkaas ayaan ku jirnaa casharka maantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wabillahi tawfiiq